beel iska fariisan karaane waa argagaxay buu yiri markaas nabigu inta soo tagay guriga imid ayuu Khadiija wuxuu yimid ku yiri dadtiruuna soo dad buu yiri sidoo kale to markaas Ilaahay u waxyooday yaa ayyuhal mudathiru qum fa'andir wa rabbaka fakabir wa thiyabaka fadhhir markaas wacdiga halkaas soo raacay nabigana salawaatu rabbi wa salaamu alayhi sida la socoteenba halkaas markii uu joogay nabigu diinta ayuu fidinayay dhibaato badan ayaa kala kulantay qoomku ka dhashay waa qaadan waayeen waa tuu ka hijrooday ilaa Madiina insha Allah ta'ala culimada ayaa si faahfaahsan noogu soo faahin doonta wasa soo gaabinay anigu nabigana salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa uu guursaday 11 xaas ayuu guursaday waxa la oran karaa dadka qaar mar aqligan la fiiriyo waa badan yihiin laakiin xaasaska nabigu ma ahayn kuwa shahwo lagu guursaday waxay ahaayeen kuwa mataqaana jaamacadaha islaamka ay ahaayeen waayo nabigana salawaatu rabbi wa salaamu alayhi maadaama xijaabku soo degay waxa weeye diintu markaas ay iska ahayd ay ku bilaabtay nabiga salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ayaa waxa Ilaahay u sameeyay dadku mashrabiyo badan ay ka cabaan marka gabdhaha mu'minaadka oo dhan iyo asxaabtu gabdhaha azwaajta nabi ay ka qaadan jireen diinta oo la kulmi jireen marka sida anaku aan shahwadan uu guursano oo gabdhaheena guurkan uu shahwo iyo rabitaan iyo uu yahay ma ahayn midka nabiga salawaatu rabbi wa salaamu alayhi midka nabigu wuxuu ahaa doorasho Ilaahay uu doortay inay dad diinta gaarsiiyaan xaas nabigu guursada waxa uu horeysay gabadhii hadda aan ka soo sheekaynaynay Khadiija bint Khuwaylid waxay ahayd gabar aad u wanaagsan oo nabiga maalkii ay lahayd nabiga ka hor taajirad bay ahayd maalkeeda la garab istaagtay waxa weeye naf iyo maal bay u hurtay nabigana salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa isku dhimasho isku geeri dhawaa Khadiija iyo halkii adeerkiis Abi Talib waa markii nabiga murugada u baahan soo martay ahayd waxay ku dhimatay Khadiija maalkii leeyahay Maka waxaana ma taqaanaa Alla ku roon yahay loo aasay Maka nabiga Muhammad ayaana god ka dhigay waxaana nabigu Ilaahay bishaar xaqiis uga keenay in ay ahlu janno tahay xaaska labaad nabiga guursada waxay ahayd Sawda bint Zam'a hadda Aisha waa ay yarayd oo markaa Aisha aad Alla ku roon Iiraam ku guursaday ka bacdi ay ursan doonaan gabadhaas marka ayna Quraysh ah reer Amir bay ahayd xaas uu la guri tagana ayada uu horeysay Khadiija ka bacdi laakiin intii Khadiija uu qabay xaas kalena lama guursanin kaliya ayuu qabay marka Sawda waxa ahayd gabar ayaduna aad iyo aad hadii Alla ku roon yahay u qurux badan u wanaagsan ayaduna waxay dhimatay Shawaal hijrada nabiga markaa salawaatu rabbi wa salaamu alayhi nabiga ka bacdi dhimatay hijrada nabiga markaa 54 ay dhimatay Aisha ayaa ku xigtay ummul mu'miniin ahayd hadda Aisha waxay ahayd gabadha nabiga ugu jeclaa xaasnimo laga hadli maahay diinta gabdhaha ugu cilmi badan bay kamid ahayd oo caalimad bay ahayd waxa dhalay saaxiibkiisa kuwaasi Abu Bakar oo uu dadka Ilaahay urtar ugu jeclaa ayaa dhalay waxa kale oo dhashay gabadhii cajiibkaad Roomaan oo nabiga yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi qofkii doonaya inuu gabar xurcina wajiga arko Roomaan ha fiiriyo wajigeeda macna hadda waxa laga qaadan karaa xijaabkana dadka wajiga in la fiiraan la ogolayn mar buu soo degay markii hore xaraam ma kala ahayn markii hore oo xijaabku diintu maalin ba qayb ayaa soo degtay marka gabadhii saa u wanaagsan Roomaan way dhashay Sayyidina Abu Bakarna gabadhiisba ahayd nabiguna salawaatu rabbi wa salaamu alayhi gabar bikra Aisha ayuu ka guursaday inta kale waxay ahaayeen asaga nabiga ka hor xaas kale gabdha soo yeeshay ay ahaayeen gabdhaha ta ugu cilmi badan bay ahayd mudlaq ahaan ayana waxay dhimatay bil Ramadaana waxaana lagu duubay Baqiic waxaana ku tukaday salaadeedii Abu Bakar Abu Hurayra ku tukaday saxaabiga jaliilka ahaa Xafsa bint Umar ayaa ku xigtay Sayyid Umar gabadhii cajiibka ahayd oo aad iyo aad u wanaagsanayd markii ka sheekaynahan culimada maalka leeyado dadka mu'arriqiintu waxay leeyahay qawaamatun qof aad u toosin badan aadna u cabsi badan bay ahayd waxaana ahadiis nabiga ku sheegay salawaatu rabbi wa salaamu loogu bishaaray inay ka mid noqon doonto xaaskiisa ma taqaana jannada waxay ku dhimatay ayana Baqiic markii hijrada nabiga salawaatu rabbi wa salaamu alayhi 45 waxa ku tugaday amiirkii markaas meesha madaxa ka ahaa Marwan bin Hakim qabrigana waxa dajiyay ma taqaana Abdullah bin Umar oo walaalkeeda ayaa qabriga dhigay nasiib bay lahayd Zainab bint ma taqaana ayaa ku xigtay bint Khuzayma umul masaakiin nabigu sanadii labaad ayuu guursaday oo hijrada salawaatu rabbi wa salaamu alayhi sanadii afraadna way ka dhimatay nabiga sagaalka xaasu ka dhinta maahane labada asaga ka hor dhimatay waa Khadiija iyo ma taqaana Zainab bint Khuzayma sagaal kaleeto nabiga way ka dambeeyeen gaaridiisa oo asaga ka bacay dhintaan laakiin labadaasi nabiga noloshiisa ay ku dhinteen ayana Baqiic baa lagu duugay ayuu 30 sano jira Salama ayaa ku xigtay
gabadhii haddii alla kuuran yahay ilaahay ku namcaysta weeye cumriga iyo oo aad iyo aad ilaahay cumri siiyo weeye salama waxay ahayd xaasaska nabiga tii u dambeysay oo wafaada ay ahayd xaasaska nabiga mid wafaada salama ayaa ugu dambeysay 62 markii hijrada nabiga ahayd ayay wafaaday salama Zaynab bint al-Jahshi waxay ahayd ayadu nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi dhimashadiisii salama tii ku xigtay Zaynab bint al-Jahshi ahayd nabigu markuu wafaaday ka bacdi xaasaska nabiga ayaa horreematay Zaynab ayaa horreematay waxayna dhimatay haddii alla kuuran yahay xilligii Sayyid Umar ayaa ku tukaday baqiic baa ayadana lagu duugay Juwayriya bint Harith ayana baqiic bay ku dhigatay ayada Zaynab ka dambeysay ayana waxa tajsiisiyay oo mataqaana aasay Marwan bin Hakim oo markaas meesha madax ka ahaa Safiya bint Huyay ayaduna ayaa ku xigtay ayana baqiic bay ku dhimatay markii hijradu ahayd kontonkii hijrada nabigu Ramla bint Sufyaan Abi Sufyaan gabadhiisii ama maxay dhihi jirana gabadhii waxa ayna aad ku dadaalka badneed oo nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi markuu wafaaday aad iyo aad hadii alla ku roon yahay iyadu aan dadka argagaxin ahayd oo dadaal badan sameysay ayna Madiina ku dhigantay xilligii walaalkeed uu khilaafada haystay Muawiya ibn Abi Sufyaan Maymuna bint Harith ayana sidoo kale way nooleed oo xaaska nabiga ummatul muuminiin bay kamid ahayd ayna samankii Muawiya kuntumiyada ayuu wafaaday waxay ahayd gabadhaasi markii nabigu xanuunsaday salawaatu rabbi wa salaamu alayhi gabadhii gurigeeda uu nabigu ku xanuunsaday markaas xaaskiisa dhan nabigu wuxuu idan weydiistay ilaa xaq bay ku leeyihiin mid wala habeenkeed inuu tagay intuu jiran yahay guri Caaisha jooga way idnaan guri Caaisha ayaa naftu markay ayadu mataqaan guriga ku xanuunsaday oo guri Caaisha uu hadii alla ku roon yahay oo galana timid nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi 11 kaas ayuu soo guursaday nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu dhalay 7 ilmo ah 3 wiilal bay ahaayeen 4 gabdhay ahaayeen wiilasha nabiga waxa magacyadooda loo jiray Qaasim iyo Daahir iyo Ibrahim gabdhahana Faadima iyo Zaynaba iyo Ruqiya iyo Umm Kulthum dhammaantood waxa dhashay Khadiija bint Khuwaylid inta kaan Ibrahim hooyis waxa loo jiray Maariyatul Qibdiya nabigana uu suriyeystay waxa la rabaa marka in aan nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi awlaadiisi iyo abtiriskiisi iyo dhaqankiisi aan barano waxyaalo kale ay sii qorqoran laakiin culimo badan baa iga dambeeyay u jeedaa Sheekh Abdullah waa jooga awal inuu naga hormaray ahayd laakiin hadda asaga xogaa hawla yar soo qabsaday uu soo ictidaarta inuu jooga iyo rag badan oo mashaayikha joogta marka iga raali ahaada wixii aan khalday culimada ayaa saxaysa intaas ku soo qaabina aqulu qawli hada wa astaghfirullahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم صل عليه وسلم عدد مكانا وبما يكون وسرنا لقاك بعين اليقين كعين السحابة ترى بالعيان اللهم صل عليه وسلم عدد مكانا وبما يكون يا من به الرجو يوم الدين كن دائما معي إلى يوم الدين اللهم صل عليه وسلم عدد مكانا وبما يكون بني الإحسان حبنا بالإحسان إحسانا يذهب عنا بالعصيان اللهم